Assalaamu calaykum. Halkan waa qaaradda Afrika, qaarad laga sheego dib u dhac, saboolnimo, fowdo, faqri iyo wax kasta oo nolosha bini'aadamka khatar ku ah. Waa taariikh madow oo qaaraddan diiwaanka ugu jira, balse dhanka kale waxaa jira taariikh la xiriirta hodantinimo iyo ilbaxnimooyin hore oo qaaraddan ay leedahay, balse aan la sheegin. Halkan waa Somaliland. Deegaankan waxaa lagu magacaabaa Laasgeel. Qiyaastii 57 kiiloomitir u jira caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Waxaan dareemayaa inaad badankiin maqasheen deegaankan. Waa deegaan la deganaa xitaa ka hor taariikhda qoran ee bini'aadamka. Waxaa ku yaala godad la rumaysan yahay inay gaarsiisan yihiin ilaa 9,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Waxaa halkan ku jira sawirrada iyo sharaxaadaha ugu da'da weyn ee laga yaqaano Afrika. Goobtan waxay muujinaysaa in dhulka Soomaalidu yahay mid ka mid ah goobaha ugu da'da weyn ee bani'aadamku ku noolaa. Caddaymo iyo cilmi baarisyo badan ayaana muujinaya in dhulkan la deganaa xilligii Paleolithic, taasoo ka dhigan kumanaan sano ka hor inta aysan bilaaban taariikhda qoran ee bani'aadamka. Dadka halkan deganaa waxay noloshoodu ku salaysneed ugaarsasho, xoolo dhaqasho iyo nolol reer guuraa. Sawirrada iyo qarshaxanada ku xardhan Laasgeel waxay cilmi-baarayaashu ku sheegeen inay muujinayso noloshii maalinlaha ahayd ee dadkii halkan deganaa ay lahaayeen. Waxyaabaha cajiibka ahse waa in midabada sawirradu ay weli muuqdaan, taasoo muujinaysa farsamo sare. Meelo ka mid ah sawirrada halkan ku dheggan hoostooda waxaa laga helay calaamado iyo astaamo u eg qoraal, balse ilaa hadda si rasmi ah looma akhrin, lamana hubo inay yihiin far qoran ama calaamado dhaqan iyo kuwa diimeed intaba. Intaas oo la isku daray waxay muujinayaan in dhulka Soomaalidu yahay dhul ay deganaayeen dad ilbax ah oo aqoon-yahano ah, maadaama dhismaha dhagaxa ah uu u baahan yahay aqoon injineernimo, nidaam shaqaale iyo aqoon ku dhisan cilmi iyo garasho xooggan. Soomaalidu kaliya ma ahayn dad reer guuraa xoolo dhaqato ah sida taariikhdooda laga dheehan karo. Sidoo kale waxay ahaayeen ganacsato xiriir ganacsi oo xooggan uu kala dhexeeyay Masar iyo Greek, kuwa oo dhoofin jiray waxyaabaha udugga sida uunsiga, fooxa, malmalka, waxaana loogu magac daray dhulka ay Soomaalidu degto dhulkii udugga. Doorka firfircoon ee Soomaalidu ku lahayd ganacsiga caalamiga ah ee xilliyadii hore waa mid aad u qoto dheer. Xeebaha Soomaaliduna waxay ahaayeen marino ganacsi oo firfircoon, kuwaas oo isku xirayay Afrika, Aasiya iyo Yurub. Waxaana ganacsiga Soomaalidu gaaray dalal fogfog sida Hindiya iyo Shiinaha, taasoo muujinaysa in Soomaalidu ay qayb ka ahaayeen shabakado ganacsi oo caalami ah xilli aad u horreeyay. Ganacsiga dhulka Soomaalidu wuu kala duwanaa. Magaalooyinka dhaca xeebaha koonfureed sida Muqdisho, Marko, Baraawe waxay lahaayeen dhaqan magaalo, suuqyo furan iyo dekedo mashquul ah, halka xeebaha waqooyi uu ganacsigoodu ku xirnaa carwo xilliyeed marna furma marna xirma, kuwaas oo la furo xilli gaar ah oo sanadka ka mid ah, halkii ay ka ahaan lahaayeen suuq joogto ah oo mar walba furan. Sababtuna waa in dadka badankoodu ahaayeen reer guuraa, ganacsiguna uu ku xirnaa dhaqdhaqaaqa xoolaha iyo roobka. Ganacsiguna wuxuu ahaa mid kooban, goobo gaar ah sida Saylac, Berbera iyo magaalo xeebeedka Caluula ayaa ahaa magaalooyinka ugu waaweyn ee uu ka jiray ganacsiga badan. Sidaas darteed, ganacsigu wuxuu dhici jiray xilli lagu heshiiyey oo ay ganacsato shisheeye ay iman jireen. Marka laga soo tago ganacsiga badaha, Soomaalidu waxay sidoo kale ku wanaagsanayd ganacsiga dhanka beriga. Waxyaabaha u sahlay ganacsigaasna waxaa kow ka ahaa isticmaalka geela, waxaana la sheegaa in isticmaalka geela uu ku faafay masaaridii hore iyo waqooyiga Afrika kadib markay arkeen sida geelu u sahlay ganacsiga Soomaalida, sidoo kalena uu uga dhigay quwad ganacsi oo xor ah. Bulshada Soomaalida waa kuwo firfircoon, xadaariyiin ah, aadna ugu fiican ganacsiga iyo kala gudbinta badeecadaha. Waana sababta keenaysa in Soomaalidu meesha ay tagaan ay ka sameeyaan nolol, isla markaana ay isugu dayaan inay ka dhex muuqdaan ummadaha kale.